nabadoon Abshir Caydiid oo kamid ah nabadoonnada gobolka Nugaal ayaan hordhigay su'aal ahayd sideebaad u xalisaan marka aad gashaan garta qof dumar ah oo lagu tacadiyay amaba muwaadin kasta oo dulmi tirsanaya maadaama madaxda dhaqanku ay inta badan u gogol fariistaan xalinta khilaafaadka bulshada ka dhex jira shareecada Ilaahay baan u mandhignaa kii dambiilaana ka iyaga waxa dambigeeda ku qaada kii xaqna waxa xaqeeda iyada siisa anagu maslaxada aan la isku dhicin oo dibka weyn dhicin baanu ka shaqeynaa eedaynta ay xiriirlalintu u jeedisay nabadoonnada waxa uu sheegay nabadoon Abshir Caydiid inay hadda tahay dadka shacabka ah oo ku kalsoonaan waayay sida uu hadalka u dhigay xukunka maxkamadaha oo markaasi ay dadka shacabka u aamineen nabadoonnada anagu hadda waxay u dhawaaqayaan shareecada culimada markii iyagii dadkiisa u galeen shareecada ummadda oo sharciga Ilaahay oo tikaafka baan u wareejinay culimadana gasha iyagiina laaluushki iyo wixii ay qabeen iyo qareemadoodii iyo wixii oo dhan baa isku soo jeestay waxaynu eedaynayaan in haddaanu aragnay waa ka jahayna dadkii shareecada Ilaahay baan ku jahayn madaninimadoodii iyo qareenimadoodii iyo laaluuskoodiina waanu ka jeedin dadkii ay sidaas u gali jireen bay waayeen haddii anagu aanu helaynana dadka maamulka haysta oo meesha keenay xitaa anigu waxaan idhi waxa weeye dadkan waxa ummadda laga qabto madaxweynuhu wuxuu yiri waa istaagayaa maxkamadda welina ma u tagin anigaygaan baa yiri maxkamadda tag dadkii waa ku dhunsan yahay annagu eed malihin dadka waxa walaaluus kama qaadano dambi kama gallo